iyadoo ay ka soo wareegatay muddo 2 sano ah qaraxii Sooba ka dhacay 14 Oktoobar waxa uu saameeyay nolosha qoysas badan oo aan ilaa haatan ka soo kabsan. Dhibane Cismaan Xasan Macalin oo ku nool magaalada Muqdisho waa aabba 4 sano la xanuunsan jab ka soo gaaray lugta bidix, waxaana wax looga qaban waayay dalka gudihiisa. Cismaan Xasan ayaa wuxuu dhalay 2 gabar iyo 1 wiil, walow uu wiilkii indhaha u ahaa qoyska uu ku geeriyooday qaraxii Sooba ee lagu laaday. Aabe Cismaan waxa uu ii sheegay in wiilkiisa inta uusan dhiman uu u qaadi rabay dalka dibadiisa si wax loogu qabto xaaladiisa caafimaad. nolosheeda xaaladda waa iska caadi alxamdulillahi rabbil caalamiin. kulliba nin xoogsataa iska ahaa. 2014 baa lugtaan cudurka igaga bilowday. muddaba meel bay soo maraysay hadda waa xanuunkii ugu dambeeyay ayaa hadda oo dhaqaaqi lahay. of meel farmashi aan tagay cirbada 13 cirbadood camalaas intii iga siiyey bararkii hoos igu dhacay. bararka dan markii hoos igu dhacay cirbadii wax ii tari waayeen dadkaan jabka iyo wax qaabilsana u tagay nin farsamo yaqaan ee waa la igu gubay. labada lugood waa la iga gubay, labadaba xanuunka isku mid ah. tan markii la gubay waxoogaa yar waa roonaa, tanaa cudurka u wareegay. marka ilaahay markiisaan aan u socday cunsaday waa kala wareegtay lugta. markaad kala wareegtay inta way kar yaraatay. markii hadda aan istaagay lafihiibaa yaa isqabanaya, yaa ka yeeraysa oo lafihiibaa sidii yaa lafahaygiibaa shanqarahay. saan markaan u istaaga qajac oo aleyn. marka turkiga la igeeyey oo wiilkaygii noolaa waxay saareen raajay saareen, waxay dheheen laba lugo lafood inta maraysa madaxa ka jaban. wadaadiga ilmaha ii dhashayna hadda waa alxamdulilah waa dhimatay. ilmihiina 3 bay ahaayeen, wixii kale waa iska dhammaadeen. 2 gabdhood oo baadiyi lagu qabo ayaa hadda joogta. nin marka oo Cumar Cismaan dhahaanoo dee alxamdulilah rabbil caalamiin iyo kaasa hadda sanooyinkan ii shaqaynayay. asoo lugtaan waxbaan ka qabanaynaa 2014 ilaa 15 isbitaalkan turkiga u geeyey. dibadda lugtaan loo qaadayaa la yidhi, lacag badan bay noo sheegeen. haddee aaba haddii ilaah yiraa meeshaan kuu qaaday annakoo isku og ballantii aan joogno. haddee alxamdulilah asaga ii shaqaynayay. qaraxii Soobo ku dhintay. shirkad daruuro dhaano number 4 oo ka shaqayn jiray waa la kasaa nin caamib oo Cumar Yaraa la dhihi jiray. haddee ninkiisii u dhintay anigana nin hadda waxaan iska noqdayba sariir ku aruuray camal ah. arrinteediba si kale noqotay. wiilkii geeridiisa ayaa aad ooga nacay. kabacdi lugtii xanuunkeen hadda waa igu soo darsaday. Aabe Cismaan Xasan oo hadda ku nool guriga lagu qabo gabar uu adeer u yahay, waxa uu ummadda Soomaaliyeed iyo madaxda dowladaba ka codsaday inay ka caawiyaan sidii caafimaad dibadda ah loogu qaadi lahaa. gabar aan adeer u ahay baan hadda iskala joogaa. gabadhaasaa hadda sariirtaani ii gaday. hadda taan dirsadaana intaa hadda hooyii intaan iskala joogaa. ka codsanaya ummadda Soomaaliyeed, dowladda federaalka iyo hay-adaha iyo dhammaan muslimiinta dhan dal iyo dibad waxaan ka codsanayaa in waxaan isbitaal ku taga inay gacanta ii fidiyaan baan rabaa. telephone number waxaan leeyahaa number caadi ah iskale ah. nambarkayga 703 67 72. nambarkayga waxaa waaye 703 67 72. Ismaaciil Aadan Bariise, Somali Cable TV, magaalada Muqdisho.